السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال كسو دوادا درسيجيني maanta darsigeena waxaan uga hadlaynaa wax loo yaqaano operators markii programming language la joogo waa calaamado oo gaar ah oo lagu isticmaalo waayo programming language-ka sida waxa kamid ah horeyna u soo qaadanay arithmetic operators ayaa kamid ah assignment operators, relational operators, logical operators, unary operators. Tantan ayaa waxa loo yaqaanaa operators markii la joogo Python programming language. Hore ugu soo hadalnay waxa waaye sida multiplication-ka, addition, subtraction, division waxa loo yaqaanaa arithmetic operators. Sida haddaan dhahno x is equal to enter y is equal 4. Addition haddaan sameynayna waxaan leenahay x plus y waa 4. haddii subtraction aan sameynayna waxa waaye x minus y waa sida. haddii division aan sameynayna waxa waaye x divided by y. sidaan ayaan u isticmaalaynaa, horeyna waan ugu soo hadalnay. tan kale oo ku xigta waxaa la yiraahdaa assignment operator. waxay la mid tahay haddaa aragto waxaa loo yaqaanaa assignment operator ayaa loo yaqaana markii programming language la joogo. tusaale haddaan dhahno x is equal 4 ama 6 x is equal 6 haddaan dhahno assignment ayaa loo yaqaana. hadda waxa waaye x qiimaheeda horey ku soo isticmaalnay 2 ahayd meeshan 6 waay. haddaan u baahno inaan wax ku darno maxaanu sameynaynaa x is equal x plus hadda x qiimaheeda waa 6 haddaan dhahno x plus 1 waxaa noo soo baxaya 7. haddii short form ahaan rabno inaan u isticmaalno waxay noqonaysaa waxaad leedahay x plus is equal waxaad leedahay numberka aad doontid ayaad ku daraysaa oo 2 ayaad leedahay enter then x hadaa geliso waa kasaa 9 ayay maraysaa. assignment operator waxaad ku isticmaali kartaa hal line ayaad ku isticmaali kartaa oo waxaad sameyn kartaa 5,6 ayaad dhigi kartaa hal line ataa suurtagal waa enter ayaad leedahay. a hadaa soo daabacdo 5 way, b hadaa soo daabacdo 6 way. marka sidaan ayay u shaqeynaysaa assignment operator. tan kale aan rabnaa inaan isticmaalno waxaa waa unary operator. unary operator waxaa loo isticmaalaa waxaa la waaye hal ayaa lagu wadaa n hadaa soo daabacno waa 7. marka haddii aan dhahno ka waran minus n hadaa dhahno ka waran waxaa noo soo baxayso minus 7 ayaa noo soo baxay. si kale waxaan u isticmaali karnaa n is equal minus n hadaa u isticmaali karnaa iyadan waxaa noo soo baxayso minus 7. unary operator iyadana sida tan ayaa loo isticmaalayaa. midda kale oo noo xigta waxaa waaye relational operators ayaa la dhahaa. relational operators waxaa la isticmaalaa markii laba waxyaabood oo xiriir leh adiga isticmaalaysa ama laba waxyaabood oo yani markaa rabto inaad isbarbardhig ku sameyso waxaad isticmaalaysaa relational operators. tusaale horey waa soo marnay markaan soo maraynay boolean markaan soo maraynay waa soo isticmaalnay taas waxaa loola jeeda true and false. markaan soo maraynay boolean ilaa markaan soo maraynay waxaan ka hadlaynay true and false. marka meesha ayaan ku soo isticmaalnay oo waxaad dhihi kartaa a less than b enter ayaad leedahay waa true sababtoo a qiimaheeda waxa waaye 5 waay. b qiimaheedana markii ugu dambeysay waxay maraysay b qiimaheedana waa 5. marka a qiimaheeda waa 5 b qiimaheedana waa 6 waa sax. a waxay ka yartahay b ayay ka yartahay waa true waay true. sidoo kale waxaan dhihi karnaa a waxaan leenahay b enter true waay iyadana sababtoo a waxay ka yartahay ama la mid tahay b way ka yartahay sax waay true waay. waxaan kaloo isticmaali karnaa lama mid aha ayaan isticmaali karnaa not equal ayaan isticmaali karnaa. see u isticmaali karnaa waxaynu leenahay iyadana a ama loo yaqaano calaamatul cajiib ayaanu isticmaalaynaa equal to b ayaanu leenahay waa true iyadana a lama mid aha b lama mid aha sababtoo a qiimaheeda waa 5 b na waa 6 marka lama mid aha. a is equal 7 enter. had marka waxaynu leenahay a is not equal to b. had waxaan rabnaa inay noo soo baxdo maxay false ayaa noo soo baxay waa sidaan rabnay. marka tan ayaa waxaa lagu magacaabaa relational operator. sababta loogu magacaabayna waxaa waaye waxaad xiriirinaysaa laba value ama laba waxyaabood ayaad waxaad u sameynaysaa xiriir ayaad u sameynaysaa isbarbardhig ayaad u sameynaysaa. sidaas darteed waxaa lagu magacaabaa relational operators. midda kale noo xigta ayaa waxay tahay logical operators. logical operators waxaa loo qeybiyaa 3 qeybood ayaa loo qeybiyaa and iyo or
iyo not ayaa loo qeybiya. tusaale is equal to 6 hadaan dhahno b is equal to 5 haddii aan dhahno yani a waxay ka yar tahay maxay ka yar tahay 8 ayay ka yar tahay space b waxay ka yar tahay 2 saana dhahnay markaas aan dhahnay marka maxaa u malaynaysaa halkan in la isticmaalayo halkan waxaan u baahanahay inaan isticmaalno logical operator oo loo yaqaano and ayaan u baahanahay inaan isticmaalno waxaynu leenahay and dan hadda waxaynu leenahay enter false way marka a way ka yar tahay 8 waa sax qiimaha a waa 6 b na waxay ka yar tahay 2 tan dambe marka qalad ah ayna saxnayn sababtoo ah b kama yaro 2 b qiimaheedu waa 5 saas darteed false way haddii aan dhahno a less than 8 ayaan dhahnay and b qiimaheeda b wuxuu ahaa 5 ayuu ahaa b less than 6 ayaan dhahnay enter hada true way sababtoo ah b qiimaheeda wuxuu ku yaryahay 6 wuu ka yaryahay saas darteed waa sax marka halkan waxaan isticmaalnay and ayaan isticmaalnay marka halkan waxaan haysanaa waxa loo yaqaan true table and marka isticmaalino table kan ayaan isticmaalinaa and x y iyo c table ayaan abuuraynaa marka haddii oo x0 ay tahay y0 tahay c na 0 ayay noqonaysaa false way markii and operator la maraayo markii x0 ay tahay y na 1 ay tahay haddana waa 0 ilaa labadoodaba 1 ay ku noqonayaan haddii labadoodaba 1 noqdaan markaas true way waa sax ay noqonaysaa or operator markii la maraayo or operator waxa waaye haddii labadooda mid ka mid ah hal uu yahay conditionku wuxuu noqonayaa xaaladdu waxay noqonaysaa true ay noqonaysaa mid sax ay noqonaysaa ilaa ma labadooda 0 ay ku noqonayaan haddii labadoodaba 0 ay yihiin markaas false way laakiin hal ka mid ah hadduu 1 yahay waxay noqonaysaa sax waaye true way sidoo kale waxaan isticmaali karnaa not ayaan isticmaali karnaa si outputkeena reverse aan u dhigno u bedelno waxaan isticmaali karnaa not ayaan isticmaali karnaa operatorka loo yaqaan tusaale ahaan x is equal ayaynu dhahnay true x was true ayaan dhahnay hadda x hadaa soo daawano true way ilaan waxaan ku assign garaynay true ayaan ku assign garaynay haddii aan rabno inaan false ka dhigno maxaan isticmaalaynaa not ayaan isticmaalaynaa waxaan leenahay not then waa false ay noqonaysaa haddii oo yani x aan u baahanahay inaan qiimaheeda ama valuegeeda false aan ka dhigno si kale hataa waa u isticmaali karnaa oo waxaan isticmaali karnaa not ayaan isticmaali karnaa oo waxaan dhihi karnaa x is equal not x ayaan dhihi karnaa then x haddaan soo daawano hadda waxay noqonaysaa false ayay noqonaysaa sidaan waa u isticmaali karnaa waxaan kaloo halkaan ku isticmaali karnaa oo ayaan isticmaali karnaa oo operator say u isticmaalinaya isna waxaan ka dhigi karnaa waxaad leedahay b greater than or equal to a ayaan isticmaali karnaa enter marka false way sababtoo ah oo waa soo qaadanay yani tablekeeda haddii mid ka mid ah uu true yahay ama sax yahay sax ayaa soo baxayso haddii labadoodaba sax ahayn sax ma soo baxayso sababtoo ah qiimaha a waa halkan waxaan ku haysanaa 6 ayaan ku haysanaa qiimaha a b waxaan ku haysanaa 5 ayaan haysanaa marka a waxay ka yar tahay ama la mid tahay ayaa la dhahay b na qiimaheeda 5 waay mana ka yaro mana la mid ah way ka weyn tahay saas daraaddeed false ayaa soo baxday haddaanu dhahno ka waran a is greater than or equal to b is less than or equal to a hadda true way sababtoo ah b a way ka yartahay way la mid tahay sababtoo ah b qiimaheeda waa 5 ilaa a ayaa ka weyn sidaan waxaan ku gabagabeynay casharkeeni maanta insha allahu tacaala casharkan lamid ah intaan dib uga kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh